Assalaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan ka hadli doonaa shanta YouTuber ama shanta YouTube channel ee ugu caansan dunida. YouTube maanta waxa uu noqday meel ay dad badan ka sameeyaan malaayiin dollar, laakiin waxaa jira qaar si gaar ah uga dhex muuqda dhammaan dadka kale. Aan ka bilowno lambarka shanaad. Lambarka shanaad waxaa ku jira Vlad Aniki. Vlad Aniki waa channel aad looga yaqaano dunida. Channelkooda waxaa lagu soo bandhigaa sheekooyin, ciyaaro iyo muuqaallo madadaalo ah oo ay sameeyaan walaalaha Vlad Aniki. Waxa cajiibka ah ayaa ah in channelkoodu leeyahay ku dhowaad 150 milyan oo subscribers ah, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah channelska ugu caansan dunida. Lambarka afaraad waxaa ku jira Seth India. Seth India waa channel Indiyaan ah oo caan ku ah barnaamijyada madadaalada ah. Ma ahan YouTuber hal qof ah, balse waa channel aad u weyn oo leh in ka badan 190 milyan oo subscribers ah. Waxa uuna ka mid yahay channelska ugu badan subscriberska YouTube-ka maanta. Lambarka saddexaad waxaa ku jira CoComelon. CoComelon waa channel caan ku ah heesaha iyo waxyaabaha carruurta loogu talagalay. Muuqaaladooda waxaa daawada carruur iyo qoysas ku nool meelo badan oo dunida ah. Channelkan waxa uu leeyahay in ka badan 200 oo milyan oo subscribers ah, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah channelska ugu waaweyn dunida YouTube-ka. Lambarka labaad waxaa ku jira T-Series. T-Series waa shirkad muusig iyo filimaan Hindi ah, waana mid ka mid ah channelska ugu awoodda badan YouTube-ka. Waxay leedahay in ka badan 300 oo milyan oo subscribers ah. T-Series sidoo kale waa channelka leh tirada views-ka ugu badan marka loo eego channelska waaweyn. Laakiin lambarka koowaad ayaa ah MrBeast. MrBeast oo magaciisa dhabta ah yahay Jimmy Donaldson waa mid ka mid ah dadka YouTube-ka ugu caansan taariikhda, wuxuuna caan ku yahay challenges waaweyn, tartamo abaalmarino lacageed lagu bixiyo. Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in channelkiisu hadda leeyahay in ka badan 500 milyan oo subscribers ah, taasoo ka dhigaysa YouTuber-ka ugu subscribers-ka badan dunida. Waxa kale oo MrBeast caan ku yahay inuu lacago aad u badan dib ugu maalgeliyo muuqaaladiisa, taas oo sababta in videoskiisu noqdaan aad u waaweyn oo malaayiin qof ay daawadaan. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan subscribe saar channelka, muuqaalkana like garee, siina share garee. Mahadsanid.